kulan wanaagsan saaxiibada qiimaha badan waxaad ku soo dhawaataan wararka ugu waaweyn iyo qodobada aan idinku heena waxa ka mid noqonaya guddiga doorashooyinka heer federaal oo sheegay in 7 bilood gudahood sanadka 2026 ay ku qaban doonaan doorasho qof iyo cod waxaan idin soo gudbin doonaa hadal dhinacyo badan taabanaya u jeediya gudoomiyaha guddigaasi qodobada kale waxa ka mid noqonaya maamulka Axmed Madoobe oo digniin u diray dawladda federaalka Soomaaliya isagoo dhinaca kalena amray in diyaaradaha rakaabka aysan ka degin magaalada aan raahday Raskamboni ee gobolka Jubbada Hoose maxay tahay sababta xilligan Axmed Madoobe uu soo saaray digniinaha waan idin soo gudbin doonaa qodobada kale waxa ka mid noqonaya waa sidee xaaladda deegaanka Raskamboni oo saacadii u dambeeyay ciidamada ka tirsan kuwa maamulka Jubbaland halkaas gaarayeen iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyo ciidamada kala duwan halkaas ay ka wadaan waxaad kula daawan doontaan oo warkayaga ku jira howlgalla saacadii la soo dhaafay ciidamada dawladda federaalka ay ka sameeyeen gobolada Galgaduud iyo sidoo kale Mudug wararkii ugu dambeeyay ayaan kaga heynaa qodobada ay wixii nagu soo kordha ayaa saaxiibayaal ku daawan doontaan waa 3 December sanadka 2024 qodobada daawatina faahfaahsan ku soo dhawaada haddii aan ku bilowno maamulka Axmed Madoobe ayaa war uu soo saaray waxa uu ku sheegay in aan la ogolaan doonin isla markaana uu digniin u diray maamulayaasha shirkadaha diyaaradaha oo uu ku eedeeyay in iyagu qayb ay ka qaadanayaan colaadda maalmahan ka taagneyd gobolka Jubbada Hoose qoraalka waxa lagu sheegay in looga digayo dhammaan shirkadaha diyaaradaha in ay ka degaan magaalada Raskamboni halkaas oo Axmed Madoobe iyo maamulkiisa ay ku eedeeyeen shirkadaha diyaaradaha in maalin walba ay daabulaan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya shirkadaha ayaa la sheegay in digniintan ay qaataan hadii ay qaadan waayaanna sida ugu dhaqsiyaha badan Axmed waxa uu sheegay in talaabo degdeg ah laga qaadi doono qoraalka waxa kale uu ku sheegay in wax walba oo ka yimaada aysan iyagu mas'uuliyadooda qaadi doonin hadii ay joojin waayaan sida uu sheegay dhaqdhaqaaqyada ay wadaan shirkadaha diyaaradaha oo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya halka ku daabulo isla toddobaadkii dhamaaday bilowgiisii waxa uu Axmed Madoobe markale sheegay isla markaana shirkadaha uu kaga digay in duulimaadyada ka degaya magaalooyinka waaweyn ee Jubbaland iyadoo aan lagu wargelin maareeyaasha hay'adaha Jubbaland in aysan suuragal ahayn in diyaaradaha halkaas ay ka degaan Axmed waxa uu xilligaasi tilmaamay in ay jiraan iyadoo dawladda federaalka Soomaaliya ku takrifaleyso awoodaheeda in magaalooyin kamida kuwa Jubbaland si aanan lagu wargelin iyagu halkaas ay kaga degaan balse taasi waxa uu ka soo saaray maamulka Jubbaland digniino kala duwan oo ku aadan dhinaca shirkadaha waxa uu ku amray in ay soo wargeliyaan magaalo walba ay u socdaan sidoo kale cidda markaas ay qaadayaan hadii aysan sameyn Axmed Madoobe waxa uu sheegay in talaabo cad laga qaadi doono dhinaca kale markaan u fiirino magaalada Raskamboni sidoo kale deegaanada hoostaga saacadii la soo dhaafay waxa la xaqiijiyay in ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa gorgor sidoo kale haram cad ay ka sameeyeen howlgal lagu xaqiijinayo ammaanka ciidamada ayaa isku fidiyay dhowr deegaan oo hoostaga aaga Raskamboni ilaa Badhaadhe waxaana ciidamada halkaas ay ka sameeyeen howlgallo guud ahaanba lagu xaqiijinayo ammaanka dawladda Soomaaliya horay waxay u sheegtay in ujeedka ugu weyn ee ciidamada halkaas loo geeyay in ay tahay sidii guud ahaanba loo xaqiijin lahaa ammaanka Jubbada Hoose gaar ahaan goobaha ay baneeyaan ciidamada ATMIS ee Kenya bishan December gabagabadeeda ayaa qorshaha uu yahay in ciidamada Kenya qayb kamid ah halkaas ay faaruqiyaan isla markaana saldhigyada waaweyn ay baneynayaan muhiim ay tahay in dawladda federaalka Soomaaliya gacanta ay ku dhigto si al-shabaab aanay gacanta ugu galin meelaha ay baneynayaan dawladda waxa ay tilmaantay in howlgallada halkaas laga sameeyay ahayn kuwa kaliya ujeedka uu ahaa sidii howlgalladaasi ammaanka loo xaqiijin lahaa balse dhinaca Axmed Madoobe ayaa isagu waxa uu sheegay ciidamada kala duwan ee ku sugan aaga Raskamboni in khalkhal amni ay ka wadaan halkaasi isagoo uga digay in hadii ay joojin waayaan dhaqdhaqaaqaasi cawaaqib xumo ay la kulmi doonaan laba toddobaad ayuu Axmed Madoobe u qabtay ciidamada kala duwan ee dawladda federaalka Soomaaliya ee halkaas ku sugan si guud ahaanba ay u baneeyaan isla markaana dib ay ugu noqdaan magaalada Muqdisho oo markii hore ciidamadaasi ay ka tageen Axmed Madoobe xilligan waxa uu wajahayaa marka la eego cadaadis gudaha ah isagoo kalsooni badan xilligan aanu ku qabin saraakiisha kala duwan ee ciidamadiisa hogaaminaysa Axmed ayaa waxa la xaqiijiyay in gudaha magaalada Kismaayo uu ka sameysay xarumo waaweyn oo dhufeysyo ah halkaas oo Axmed uu filanayo in ugu dambeyn la sugu imaan doono
deegaanada Buulaxaaji iyo sidoo kale deegaanada kale ee hoostaga magaalada Kismaayo ayaa iyagu saraakiisha sidoo kale ciidamada kala duwan ee halkaasi ku sugan waxa la xaqiijiyay in kalsooni badan Axmed Madoobe aysan ku qabin isla markaana hore uu sheegay in gacanta dawladda iyagu ay gali doonaan hadii Axmed Madoobe uusan joojin dhaqdhaqaaqeeda uu wado waana xaalad kale oo dhabar jab ku ah iyadoo shalay 240 kamid ah ciidamada kuwa maamulka Jubbaland ay si rasmi ah ugu biireen dawladda federaalka Soomaaliya wixii ku soo kordha wararkaasi kuwa soo aadanayaad ku daawan doontaan saaxiibayaal markana guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha ayaa iyagu warkoodii ugu horeeyay ay soo saareen isla markaana ku sheegay in dalka ay ka qabsoomi karto doorasho qof iyo cod guddiga ayaa waxa uu sheegay 2026 June in dalka guud ahaanba ay ka qabsoomi doonto doorasho qof iyo cod oo la qorsheynayo in maamulada sidoo kale magaalada Muqdisho si guud looga qaban doono Cabdikariin Axmed Xasan gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka sidoo kale xuduudaha ayaa waxa uu sheegay in 7 bilood gudahood lagu qaban doono doorasho qof iyo cod oo ay u qorsheeyeen guud ahaanba Muqdisho iyo inta kaleba ay ka dhacdo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka ayaa iyagu waxay sheegeen in doorashada ay u qaban doonaan si cadaalad ay ku dhisan tahay isla markaana aysan jiri doonin iyadoo gudoomiyaha Cabdikariin Axmed Xasan lagu eedeynayo gaar ahaan siyaasiyiinta ay sheegayaan in xiriir dhow uu kala dhaxeeyo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana uu qayb ka yahay shakhsiyaadka ugu dhow ee lagu tirinayo dawladda hadda jirta siyaasiyiinta iyo sidoo kale dadka kale oo doorasho siyaasadda ayaa iyagu waxay sheegayaan in shakhsiga uu keensaday madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud micnaheedu ay tahay in doorashada isaga uu ku soo baxo oo sidii la rabo doorashadaasi uu qabsoonto siyaasiyiinta mucaaradka ayaa dhalishan hanaanka guddiga doorashooyinka loo maray sida dawladda ay qorsheynayso in doorashada ay u qabato su'aalo badan ayaa la iska weydiinayaa sida doorashada loo qabanayo meelaha lagu qabanayo cidda ka qayb galayso axsaabta siyaasadeed oo saddexda lagu soo koobay cidda ay noqon karaan taas oo keentay in dhaliilo badan xilligan ay wajahdo dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud guddiga doorashooyinka ayaa iyagu waxay sheegeen inay ka go'an tahay qabsoomida in dalkan ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod oo guddigu uu sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan 2026 June si rasmi ah doorashooyinkaasi loo qaban doono iyadoo doorashadana 7 bilood gudahood la xaqiijiyay in guud ahaanba dalka looga dhaqan gelin doono markana hadii aynu fiirino ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa gobolka Galgaduud waxay ka sameeyeen dhaqdhaqaaqiyo lagu xaqiijinayo amaanka ciidamada ayaa dhowr deegaan oo ka tirsan halkaasi waxay ka sameeyeen howlgallada amaanka lagu xaqiijinayo inta uu socday howlgalkaasi ma jirto wax iska horimaada oo dhexmaray ciidamada dawladda iyo sidoo kale al-shabaab oo halkaasi iyagu meelo kamid ah kaga sugan gobolka Galgaduud mudooyinkii dambe waxa ka soconaya howlgallada ugu badan oo ay sameynayaan saaxiibada caalamka iyo sidoo kale ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo garab ka helaya dadka deegaanka mudugna sida ay isla mid howlgallo ayaa saacadihii la soo dhaafay ciidamada dawladda ay ka sameeyeen kuwaas oo ciidamadu ay sheegeen in guud ahaanba ujeedka laga leeyahay sidii amniga loo xaqiijin lahaa